waxaa bilihii ugu dambeeyay soo xoogaysanayay abaabulada iyo shirarka lagu taageerayo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn inay ka madax banaanaadaan maamulada had iyo jeer ku hardama gacan ku haynta goboladaasi. haddaba galbeedka magaalada London ayaa kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada ka soo jeeda deegaanadaasi waxay ku taageereen shirkii dhawaan isimada Sool, Sanaag iyo Cayn ee SSC ugu soo gabagaboobay magaalada Buurawada oo ay ku ansixinayeen hoggaanka cusub ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. go'aamada ay gaareen ee wax ku oolka ah ee waxtar kale ee wada jirka ah ee midnimada ah ayaan ku taageeraynaa. aqoonteenu waa Soomaali weyn, waxaynu ka soo horjeednaa wixii Soomaali kala goynaya. Soomaalinimo, midnimo, wada jir, calankii iyo karaamadii iyo wada jirkii wuxuu yiri Xaaji Aadan Afqallo Ilaahay ha u naxariiste ilkuhu wada jirkooda hilbaha adag ku gooyaan haday iniba meel taagan tahay arax ma feenteen. midnimada Soomaaliyeed calanka buluuga lagu xaragoonaya wuxuu ka bilaabay SSC maantana waxaynu ka bilaabaynaa 20 sanadood dibadii ina aynu ka bilowno SSC xorriyadii Soomaaliyeed oo aynu ku gaadhno ina aynu ka xoreyno dadka soo hagoogtay haraga shabeelka ee ku dhuumanaya waxaan dawlad ahayn ee maanta dalkeeni iyo dadkeeni aynu arkayno say u galeen. war wixii wanaagsan ha u kala hadhina sida aynu u dhaqanno maanta ayaa shape garaynaysa ama qaabaynaysa ama habaynaysa boqolka sanadood ee soo socda. haddii aynu isla weyno talada ama aynaga hoosto ama dhulka inooga dhacdo boqolka sanadood ee soo socda taladu dhulka inaga oolaysa. adigu maxaa tahay dalkeebaad leedahay dadkeebaad leedahay aqoonteebaad leedahay dadka aqoonta u lahaa waa kuwani goormaad u fakiri doontiin umadiina. maxamed ibraahim cigaal allah u naxariisto kursigu ka dhintay saddexdan inay isku haysta ee dalkii ay isku magacaabeen inay wax u hagaajinayaan aan waxba u qaban waxallaale waxay u qabteen ma jirto kursigii bay ku dagaalamayaan. laascaanoodna waxay u qabsadeen dadka inay been ugu sheegaan oo yiraahdaan haddii aanu laascaanood qabanno waxaanu idiin keenaynaa aqoonsi baanu idiin keenaynaa taasoo aan waxba ka jirin wax allaale wax ka jiraa ma jirin. waa 20 sanadood hadda inta Northern Region goonida u taagnayd wax hal qabiilna aad wax mu'tarafay. waxaan kaloo haddaanu nahay gabdhaha Sool iyo Sanaag iyo Cayn digniin u soo gudbinaynaa Soomaalidiidka in allaale intii ka soo jeeda horumarka dhaqanka ayagana waxaan leenahay waqtigii waa dhamaaday. waxaanu leenahay waqtigii waa dhamaaday ministradeenna u soo direyseen Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu leenahay waqtigiina waa dhamaaday albaabadiina waa xilmeenaa keeni jirtaan sanaadiiqdiina wadankayaga. waqtigii waa dhamaaday baan idin leenahay. waxaan kaloo idin leenahay waqtigii waa dhamaaday aad macdantayada iyo batroolkayga aad ka dulaaleyseen waqtigii waa dhamaaday caruurtayada 10 jirada ah aad intaad qaadataan buntuqa intaad noogu soo dhiibtaan aad anaga nagu soo direyseen waqtigii waa dhamaaday albaabadiina waa xirmeen waana dhaqaaqnay anagu baan idin leenahay. xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada Suudo ayaa ahayd mid aad u bilicsan isla markaana lagu soo sharaxay calanka Soomaaliya iyo fanaanado markaasi lagu sawiray calanka Soomaaliya isla markaana lagu xardhay hal ku dhigyo lagu taageerayo shirkaasi SSC. waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan inaan ku qabano London waanu ku taageerayno go'aamadaasi si buuxa waxa aanu mar walba soo dhaweynaa oo taageersanahay oo aanu gacan siinaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo nabadgelyada iyo amniga iyo wax ka qabadka dalka Soomaaliya wuxuu qabanaya. maanta waxaan u yimid inaan shucuurteeda muujino inaan number 1 muujino inaan nahnay dad Soomaaliyeed calankana sidanana aan muujinayna inaan leenahay. xafladan ayaa ahayd xaflad ay markaas dadka sidaad arkaysaan ba aad soo baxdaafiyeen. Cabdinaasir Cirro, Universal TV, London.